baro ingiriiska mar kasta iyo meel kasta oo aad joogto. Mawduucan waa uu ka duwan yahay mawaadiicdii hore oo waxa uu ku saabsan yahay tabo iyo xeelado ku saabsan sida ugu wanaagsan ee aad ku baran karto luqadda Ingiriiska. Laba qaybood ayuu leeyahay, la soco labadaba. 2 tips and tricks about learning English. 12 xeelado iyo tabo ku saabsan barashada Ingiriiska. 1. You have to set small goals. Waa inaad samaysataa marka ugu horeyso oo aad doonayso inaad barato luqadda Ingiriiska ahdaaf ama goolal u qaybsan maalinle, bille iyo sanadle si aad u xaqiijiso riyadaada iyo waxa aad doonayso. Haddii kale waxay noqon doonaan isku dhexyaac meel lama gaari doontid. Number 2. Set aside u qoondee 1 or 2 hours, hal ama 2 saacadood every day maalin kasta. Ka badan haddii aad heli kartana way kasii fiican tahay, laakiin maalin kasta hal ama 2 saacadood iyo ka badan haddii aad heli karto intii aad awoodo ugu talagal barashada luqadda Ingiriiska, kana dhig saacadahaas ama waqtigaas ugu talagashay mid lama taabtaan ah. 3. Learn most common and important words. Baro most common and important words. Erayada ugu muhiimsan uguna caansan baro markaasi luqadda. Luqaddu erayadeedu way tiro badan yihiin, laakiin waxa ugu muhiimsan kuwa ugu caansan oo loo isticmaalo sida joogtada. Marka kuwaas wax fiican ka baro. Waxaa la sheegaa in 3,000 ama 4,000 oo eray haddii aad barato luqadda Ingiriiska 95% aad fahmi karto kuna hadli karto. Luqadda Ingiriiska ee loo isticmaalo sida joogtada ah ama maalinlaha ah. 4. Learn phrases and sentences used daily. Baro phrases. Phrase waxa weeye 2 eray ama 3 eray oo markaasi micno sameynaya. Okay? And sentences iyo jumlado. Macnaha 2 eray ama 3 eray oo isku xiran oo micno sameynaya. Jumladna way ka yihiin. Marka baro phrases, phrasyo and sentences iyo jumladaha used loo isticmaalo daily sida joogtada ah. 5. Read akhri simple books. Buugaag sahlan and passages iyo qoraallo. Buugaagta sahlan iyo qoraallada aad fahmi karto markaasi akhriso. Buugaagtaas iyo qoraalladaasna waxa ay buuxaan internetka. Haddii ayagoo waraaqa aad heli kartana way kasii fiican tahay. Marka ku bilow in maalin kasta aad wax akhriso 10 ama 20 daqiiqo waxyaabo aad wax ka fahmi karto. 6. Listen, dhegeyso and watch, daawo English content. Waxyaabo Ingiriis ah maalin kasta daawo dhageysana. Listen, dhegeyso and watch, daawo English content. Waxyaabo Ingiriis ah maalin kasta inaad dhegeysato oo daawato markaas ku darso qorshahaaga. Haddaba talooyinkaas iyo kuwa kale oo soo socda ayaa aad iyo aad muhiim ah haddii aad doonayso luqadda Ingiriiska inaad si wanaagsan oo waqti markaasi cayiman aad ku barato. Laakiin 99% dadka way ku adag tahay in ay qodobadaani fuliyaan. Marka waxaad u baahan tahay macallin kugu haga qodobadaasi isla markaana kugu kontaroola.